Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhow daawade janalka Kasba Aqoon. Maanta barnaamijkeena waxaan ku soo qaadan doonaa Dr. Henry Ford oo ahaa ninkii daaha ka qaaday in faraha bini'aadanka aysan isku mid ahayn. Henry Ford wuxuu dhashay 1 Juun 1843, wuxuuna ka tagay iskoolka asigoo jiro 13 sano si uu u caawiyo qoyskiisa. Marka uu jiray 21 sano ayuu go'aansaday inuu iska soo qoro Glasgow University, wuxuuna ka bartay xisaabta iyo loojika. Kadib wuxuu bartay mashiinka, wuxuuna ka bartay College-ka Anderson, wuxuuna sidoo kale ka qalin jebiyey fiisiska. Kadib wuxuu noqday medical machinery ee Crewe, Scotland, sanadku markuu ahaa 1871, wuxuuna si kadis ah ku ogaaday in faraha bini'aadanka aysan isku mid ahayn. Marka hore waa laga diiday, laakiin gadaal ayaa laga ogaaday in faraha bini'aadanka aysan isku mid ahayn. Haddaba muxuu ku dhahay Qur'aanka Kariimka ah faraha bini'aadanka iyo kala duwanaanshihiisa? Suuratul Qiyaamah aayadda 3 wuxuu Allah subxaanahu wa tacaala ku dhahay: ayaxsabul insaana an lan najmac cidaama. Ma waxa ay u maleeyeen dadka in aynan kulminaynin lafahooda? Balaa qaadiriina calaa an nusawiya banaana. Saas ma aha ee waan karnaa in aan siino soona celino farihiisa. Halkaas waxaa noogu cad in faraha bini'aadanka aysan isku mid ahayn. Marka laga hadlayo aqoonta sayniska, haddii aad ka baarto Qur'aanka, waa hubaal inaad ka helaysid. Waxaan filayaa inaad wax badan ka ogaatay sawiridda faraha ama fingerprint. Mahadsanid. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.